bismillaahi raxmaani raxiim soo dhowaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan maracadda show waa 11 bisha julaay sanadka 2026 qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah sidee ayuu nin 24 sano ku jira xabsi Israa'iil ay leedahay weli uu u maamuli karayaa saameynta siyaasadeed ee gilgisha Falastiin iyo Israa'iil maxay xogaga iska caabinta uga adkaysanayaan siideentiisa maxaana Israa'iil uga baqaysaa in uu mideeyo Fatah iyo Hamas ninkani warbixin sir ah oo Israa'iil ay hadda daha ka rogayso awoodda uu xabsiga uu ku dhex leeyahay ninkan iyo sababta loogu arko bedelka hogaamiyaha mustaqbalka ee Falastiin ayaan kula wadaagi doonaa waxaana sidoo kale qaybta koowaad aan ku eegi doonaa warbixin dheer oo ku saabsan ma dagaalka Iran ayaa mar kale qarxaya mase Israa'iil ayaa isku dayaysa in Washington ay ku rixdo dagaal cusub muxuu hogaamiyaha dawladda Iran Mujtaba Khamenei uu dadka xorta ah ugu baaqay in ay aargudasho degdeg ah ay sameeyaan aabihii miyuu u aargudi doonaa yeeyihiin dadkaasi howlgalka sameynaya ma ciidanka Qudus misirdoonka Iran ma kooxaha hubaysan ee Iran ay taageerto mise shabakada kale warbixintan waxaan ku eegi doonaa qorshaha Israa'iil digniinta Mujtaba Khamenei cidda fulin karaysa howlgalka aargudashada iyo sababta magaca Trump mar kale uga soo muuqday bartamaha dagaalka Iran marinka Hormuz iyo saddex doorasho oo hortaala madaxweyne Trumpna waa raacin doona insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal ku soo dhawaada mar kale iyo maracadda show barnaamijka falanqaynta caalamka like sar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay ma doonaysaa sidan oo kale in waalidka looga cumreeyo halkan waxaa uga cumreynayaa Abu Cabdi Nuur Ismaan oo isoo wakiilatay gabadhiisa shirkad la hubo oo aan damiin ka nahay almahdiyiin la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal aan ku hormarno is-afgaradkii heshiiska dhex maray dawladaha Iran iyo Mareykanka ee la saxiixay 17 bishii ina dhaaftay wuxuu wajahayaa imtixaankii ugu adkaatan iyo markii uu dhaqan galay kadib markii maraakiibta ku sugan marinka Hormuz dhowr jeer la weeraray Washington waxay sheegtay in ciidanka ilaalada kacaanka ay ka dambeeyeen weeraradaasi kadibna waxaa xigay 48 saac in ka badan 170 goobood in la bartilmaameysado oo gudaha dalka Iran iyo saldhigyada Mareykanka ee qaliijka uu ku leeyahay Iran waxay ka dagaalamaysaa in maamulka marinka Hormuz gacantooda laga saaro Mareykankana qorshahaasi ayuu doonayaa si kaarka cadaadis ee dawladda Iran ee gacanta ay ku haysa gabi ahaan loo baabi'iyo saddex xaaladood ama saddex marxalad ayaa hadda miiska saaran haddii xaaladda marinka Hormuz ay sii socoto waa tan koowaade in Mareykanka iyo Iran ay dib ugu laabtaan wada hadallada oo dhexdhexaadiyaashii Qatar, Pakistan iyo dalalkii kale ay ka shaqeeyaan si dagaalka looga hortago mar kale in dib loogu laabto waa tan labaad xiisadda in la xakameeyo laakiin mararka qaarkii wax la isku tuuro si awoodaha labada dhinac weli loo tijaabiyo weerarada kooban ayaa ka dhici karaya marinka Hormuz Mareykankana wuxuu kaga jawaabi karayaa duqeymo xadidan Iran dhankeeda waxay sameyn kartaa taasi oo kale si looga fogaado dagaal buuxa waatan saddexaad in dagaalku isu bedelo iska horimaad ballaaran taasina waa waxa dhici karaya haddii Mareykanka uu beegsado xarumaha shidaalka biyaha iyo kaabayaasha muhiimka ee dawladda Iran markeeda ay weerarto saldhigyada Mareykanka maraakiibta iyo xarumaha talisyada ciidanka ee ugu muhiimsan ee ku yaala gobolka haddii tan saddexaad ay dhacdana waa arinta ay doonayso Israa'iil sida aan arki doono waana xilli madaxweyne Trump uu wajahaya saddex doorasho midkood oo midba midka kale aad moodo inuu ka adag yahay waa doorashada koowaad inuu dagaalka dib u bilaabo laakiin isaga taama doonayo waa tan labaad in Iran uu la gala mar kale heshiis kale oo daciif ah istijaabinta hadda socotana ay sideedii sii ahaato ama tan saddexaad oo guud ahaan ciidamada Mareykanka in gobolka bariga dhexe uu kala baxo dagaal toosana la aado oo haddii dagaalka dib ugu soo laabto waxa la filayaa inuu ka xog badnaan karayo dagaalkii hore Iran iyaduna waxa ay ka fikiraysaa xaaladda gudaha dib u dhiska xarumaha iyo sidoo kale xarumaha nuclear-ka gantaalada iyo cadaadiska marinka Hormuz ee hadda la soo saaray sidii ay kaga xeeladaysan lahayd Israa'iil oo dareensan marka dhammaan arrimahaas oo idil inay iyaga ka madax bannaan yihiin oo sheekadu ay u dhaxayso Iran iyo Mareykanka oo kaliya waxay toddobaadkan ay qaada mid ka mid ah tallaabooyinka dhinaca kale wax walba u rogi karaya waana markii ay yiraahdeen madaxweyne Trump ma ogtahay marka hore in adiga la doonayo in lagu beegsado Israa'iil marnaba ma doonayso inay maskaxda Mareykanka iyo saameynteeda ay ka maqnaato wada hadaladana ay ka maqan yihiin taasina ma doonayso waxaana ay taa bedelkeeda yiraahdeen madaxweyne Trump waxaan ku siinaynaa xogaha sirdoonka adigana nala wadaag xoga dhowr ah intii duqeymii ugu dambeeyay hadda ay socdeen Israa'iil gabi ahaanba waxa loo diiday inay qayb ay ka noqdaan dagaalka iyo duqeymaha
maxaa yeelay Israa'iiliyiinta waxa Mareykanka uu rumaysan yahay in meesha ugu culus ay wax walba ay ka bilaabayaan sida hoggaanka ugu sarreeya dowladda Iiraan. taa beddelkeedana Mareykanka wuxuu aaminsan yahay aragtida ah in Iiraan la daciifiyo lagana beegsado xarumaha muhiimka ah. wuxuu aaminsan yahay isaga si reer magaalnimo ah inuu u curyaaminayo Iiraan, laakiin Israa'iiliyiinta hadiiba loo ogolaado duqeynta inay si toos ah ay kaga bilaabayaan Mujtaba Khamenei iyo hogaamiyaasha kale. inkastoo jid iyo jihadiid uu ku noqday madaxweyne Trump Israa'iil, haddana Israa'iil dhankeeda kama aysan maqnaanin waxay dareentay inay cidla ku soo dhacday wixii ka dambeeyay wadahadallada Islaamabad, magaalada Dooxa iyo socdaalkii ugu dambeeyay ee Turkiga Trump uu ku yimid. si ay sheekada u soo galaanna waxay yiraahdeen sirdoonka Israa'iil wuxuu ogaaday macluumaadka rasmiga ee ah in la doonayo in lagu beegsado, sidaa daraadeed waa inaad bedeshaa diyaaradii aad u soo qaadatay gudaha dalka Turkiga. Trumpna isaga waxba ma uusan qarina, wuxuu yiri waan ka warhayaa tan iyo markii Qaasim Suleymani aan dilay ilaa iminka inay Iiraaniyiinta ibaadi goobayaan. xaalku iyadoo sidaas uu yahay, maanta hogaamiyaha dowladda Iiraan waxa uu soo saaray fariin digniin ah oo aad u culus. Mujtaba Khamenei wuxuu yiri waxaan u aargudi doonaa dhiigga dadkii ku geeriyooday dagaalkii 2 jeer lagu qaaday dalka Iiraan. warbaahinta Al-Jazeera warbixin dheer ayay qortay oo waxay tiri inkastoo dowladda Iiraan taas ay ku hanjabtay, haddana weli lama go'aaminin cidda rasmiga ah ee weerarka fulinaysa iyo cidda la bartilmaameysanayo. aan eegno hanjabaadda hogaamiyaha dowladda Iiraan, cidda howlgalka fulin karaysa iyo cidda la beegsan karo. hadalkani cusub marka hore ma ahan mid iska caadi ah, waana digniin siyaasadeed iyo mid amni oo loo dirayo Mareykanka, Israa'iil iyo dhammaan dadkii ku lugta lahaa howlgalkii ka dhanka ahaa dowladda Iiraan. Mujtaba Khamenei waxa uu sheegay in argudashada hogaamiyihii hore ee dowladda Iiraan lama huraan ay tahay, isagoo intaas ku daray in dadka xorta ah ee dunida jooga in dhawaan ay fulin doonaan howlgalka argudashada. ereyga dadka xorta ah ayuu adeegsaday isagoo oo doonaya markaasi wax walba in la qariyo. su-aashuuse waxay tahay maxay Iiraan qorsheynaysaa, sidee loo fulin karayaa argudashadan, waana ay dadka xorta ah. bayanka Mujtaba Khamenei laguma magacaabin bartilmaameed gaar ah, goob gaar ah ama taariikhda howlgalka uu dhacayo. hase yeeshee ereyga ah dadka xorta ah ee ku sugan dunida waxay muujinaysaa in uu si ulakaca uga fogaanayo in uu yiraahdo ciidan hebel ayaa si rasmi ah howlgalka u fulinaya, isagoo doonaya markaan sheekada ama iskoobka inuu ballaariyo oo uusan hal goob oo kaliya ku soo koobin. yaa laga yaabaa inay howlgalkan ay fuliyaan. kooxda ugu horeysa ee awoodda u leh in howlgallada noocan oo kale ay argudashada aadka u xooggan fulin karaysa waa ciidanka Quds Force loo yaqaano ee hoostaga ciidamada ilaalada kacaanka. ciidankan waxay mas'uul ka yihiin howlgallada dibadda. waxay sidoo kale mas'uul ka yihiin xiriirka kooxaha hubeysan ee Tehran ay taageerto iyo abaabulka shabakadaha dowladda Iiraan ee ka baxsan xuduudaheeda. kooxda labaad ee howlgal culus fulin karaysa waa waaxda sirdoonka ee dowladda Iiraan, gaar ahaan sirdoonka ilaalada kacaanka ama wasaaradda sirdoonka ee dowladda Iiraan. hay-adani waxay qaban kartaa ururinta xogta, dabagalka bartilmaameedka iyo isku xirka ama shabakada ku sugan gudaha dalalka Iiraan xulafadeeda ay ku sugan yihiin. kooxda saddexaadna waxay noqon karaysaa ururo ama kooxo hubeysan oo xiriir la leh dowladda Iiraan balse aan si rasmi ah uga tirsaneen ciidanka ilaalada kacaanka. waxay noqon karayaan kooxaha ka howlgala Ciraaq, Lubnaan, Yemen ama kooxo kale oo gobolka ku sugan. waxaa isweydiin mudan marka sidee ayay argudashadu u dhici karaysaa. inkastoo Mujtaba Khamenei si toosan u sheegin cidda ay beegsanayaan, haddana jawaabta ugu horeysa waxay noqon kartaa weerar xooggan oo lagu qaado saldhigyada Mareykanka, maraakiibta iyo danaha Mareykanka iyo Israa'iil ee dhanka gobolka. jawaabta ugu xasaasisanna waxay noqon kartaa in dowladda Iiraan ay beegsato saraakiil, taliyaal iyo sidoo kale siyaasiyiin Iiraan ay u aragto inay mas'uul ay ka ahaayeen amarkii lagu dilay hogaamiyihii sare ee dowladda Iiraan. laakiin haddii dilkaasi ay geystaan Iiraaniyiinta ama dadkaas ay beegsadaan, xaaladdu ma noqon doonto sida hadda ay tahay oo wax walba dhinaca kale ayay u rogmayaan. saacadihii ugu dambeeyay waxaa si weyn loo hadalhayay amarada uu bixiyay madaxweyne Trump oo ah haddii Iiraan isaga ay beegsato, sida Iiraaniyiinta looga falcelin doono beegsigooda, sida loogu garaaci doono maalinta koowaad in ka badan 1,000 gantaal, maalinta labaad 1,000 gantaal, maalinta saddexaadna sidaasi oo kale. arrintaanina waxay sii adkeynaysaa warbixinada warbaahinta ay qortay oo sheegaya in sirdoonka Israa'iil ee Mareykanka ay la wadaageen xog ku saabsan qorshaha cusub ee lala xiriirinayo dowladda Iiraan inay doonayso inay beegsato Trump. inkastoo falanqeeyaasha qaar xogtaas ay u arkeen goob Israa'iil ay doonayso inay ka soo gasho saameynta siyaasadeed ee ku leedahay gudaha dalka Mareykanka, maadaama madaxweyne Trump albaab kasta uu ka soo xiray Israa'iil si mar un loo soo gabagabeeyo dagaalkii Iiraan lala galay. aragtidaadana la wadaag, like saar muuqaalka, la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay.
sida warbaahinta aljaziira ay baahisay warbixin ay diyaarisay hay-adda xabsiyada israa'il ayaa sheegtay in maxbuuska falastiiniga ee marwan barquuti weli inuu leeyahay saameyn siyaasadeed iyo mid shacab oo aada u ballaaran. warbixintu waxaa lagu sheegay in xabsiyada dhexdiisa uu kasoo gudbinaya ninkan fariin siyaasadeed iyo kuwa israa'il ee ku tilmaamtay kicin, islamarkaana lagu sii xoojinayo maqaamkiisa hogaamiye awoodda u leh inuu mideeyo ururada falastiiniyiinta, saameynna uu ku yeesho mustaqbalka siyaasadda ee falastiin. warbixintani maxay israa'iiliyiinta kala jeedaan? ma waxay doonayaan ninkan in xabsiga lagu sii hayo, tanina ay noqoto mid ka mid a marmarsiyada la doonayo in marwan barquuti aanan laga sii daynin xabsiga, maadaama dad badan ay doonayeen oo xitaa siyaasiyiin amerikaan ay ku jiraan ninkan in la sii daayo intii wadahadaladii xoogagiiska cabinta lagula jiray. sidoo kale xoogagu aad ayay u doonayeen in la sii daayo marwan barquuti. sida warbixintan oo lagu daabacay wargeeska iyo dacood axnood lagu sheegay, barquuti tan iyo sanadkii 2002 waxaa lagu xukumay 5 xabsi daa'in, wuxuuna uu ka gudbay marxaladihii caadiga ahaa isagoo u wareega waxa hay-adda xabsiyada israa'iil ay ku tilmaamtay saameyn maskaxeed iyo mid istiraatiiji. wixii ka dambeeyey hogaamiyihii xoogagiiska cabinta yaxya sinwar markii israa'iil ay sii daysay awooddiisana la arkay, waxay aad uga shallaayeen sii dayntiisa, iyagoo sidoo kalena gacanta ku haya xubno kale oo la tuhunsan yahay in doorkaas oo kale ay ciyaari karayaan. warbixintu waxay sheegtay in hadda uu adeegsanayo khudbado siyaasadeed iyo qaabeyn aragtiyo iyo sheekooyin siyaasadeed halkii si toosa uga qayb qaadan lahaa howlaha dhulka ka socda, iyada oo aanan la sheegin halkaa uu warbixintan ama fariimaan ugu gudbinayo xoogaga ku sugan gudaha dhulka falastiiniyiinta. sidoo kale waxay ku andacoonayaan barquuti weli inuu ku dhagan yahay wadada iska caabinta, islamarkaana uusan tanaasulin, isagoo adeegsanaya shabakada ay ku jiraan dad isaga ku dhow iyo qareenno si fariimihiisa loogu gudbiyo dibadda, isagoo ka taxadaraya in doorkiisa si toos ah aanan loo soo bandhigin. waa qaabka keliya ee fariintiisa bannaanka ay ku imaan karto, inkastoo eheladiisa dhowr jeer ay sheegeen in loo diiday xitaa inuu la kulmo. warbixintu waxay tilmaamaysaa in barquuti uu helayo ololo taageero oo caalami ah oo aad u sii xoogaysanaya. deegaano badan oo reer galbeed ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa astaanta u taagan halganka falastiin, halka ololayaasha qaar ay barbardhigayaan ninkan hogaamiyihii koonfur afrika Nelson Mandela. israa'iil si adag ayay u diiday isbarbardhigaasi, iyaga oo sheegaya barquuti in lagu helay kulug lahaanshiyaha weerar dhacay intii lagu guda jiray kacdoonkii labaad ee falastiiniyiinta, kaas oo 5 israa'iiliyiin ah lagu dilay. sidoo kale waxay sheegeen in lagu helay dembiyo kale oo lala xiriirinayo iskuday dil iyo ka mid ahaanshiyo ururo hubaysan. sida warbixintu ay sheegtay, barquuti wuxuu ku guulaystay inkastoo xabsiga uu ku jiro inuu ilaashado maqaamkiisii gudaha dhaqdhaqaaqa Fatax, waxaana mar kale loo doortay xubin ka tirsan golaha dhexe ee Fatax dhowaan doorashadii dhacday. wuxuu sidoo kale uu leeyahay taageero siyaasadeed iyo mid shacab. sidoo kale waxa uu qabaa qoraaga warbixintu intani ay ka dhigayso mid ka mid a musharaxiinta ugu cadcad ee mustaqbalka hogaamin karaya maamulka Falastiin haddii fursadaasi loo ogolaado. warbixintu waxaa kaloo ay leedahay barquuti waxa uu doonayaa inuu dhiso hoggaan falastiiniyiinta ay leeyihiin oo midaysan, kaasoo ay ka wada qaybgalayaan dhammaan ururada kala duwan oo xitaa Xamaas ay ku jirto. arrintaasina waxay ka dhalanaysaa rumaysnaantiisa in mashruucii qaran ee Falastiin in weli aanu guulaysan karin haddii aysan ka qayb qaadan dhammaan awoodaha siyaasadeed. warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay in aragtidan ay marka laga eego dhinaca Israa'iil ay sharxayso sababta xoogagiiska cabinta ay ugu dadaaleen in magaca barquuti lagu soo daro heshiisyadii maxaabiista la isku weydaarsanayay, iyo sababta loogu arko shakhsi awood u leh inuu hogaamiyo marxaladda siyaasadeed ee cusub ee dhulka Falastiiniyiinta. sidoo kale warbixinta waxaa looga hadlay howlaha barquuti uu sanadihii ugu dambeeyey uu ka waday gudaha xabsiga uu ku jiro. waxaa la sheegay inuu kormeeray barnaamijyo waxbarasho oo loogu talagalay maxaabiista ka hor inta aanan la joojin. sida ay sheeganayso sheekada Israa'iil, wuxuu barnaamijkaasi u adeegsanayay inuu ku xoojiyo saameyntiisa gudaha maxaabiista, inkastoo mararka qaar la sheegay ninkan meel gooni ah inuu ku xiran yahay oo aanan xitaa dadka loo ogolaan. warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay barquuti inuu aqoonta u arko qalab lagu xoojin karayo awoodda siyaasadda. wuxuu muhiimad siinayay in maxaabiista la baro mawaadiicda la xiriira taariikhda Israa'iil, hay-adaha amniga iyo hababka baaritaanka si loo diyaariyo xubno Falastiiniyiin ah oo aqoon ballaaran u leh xaqiiqda iyo nidaamka Israa'iil, si la mid ah sidii uu sameeyey Yaxya Sinwar. warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay in saameynta barquuti aysan ku koobnayn fagaaraha Falastiin, balse sidoo kale ay gaarayso xitaa gudaha Israa'iil. barquuti wuxuu isku dayaa inuu saameyn ku yeesho siyaasadda Israa'iil, isagoo xiriir la sameynaya shakhsiyaad caan ah iyo xubno carbeed oo ka tirsan baarlamaanka Israa'iil. qaar ka mid ah xubnaha carabta ee baarlamaanka Israa'iil ku jira ayaa la sheegay inay barquuti la xiriireen si ay taageero uga helaan hindise lagu dhisayo xisbi carbeed oo midaysan, kaas oo yeelan karaya miisaan siyaasadeed oo weyn.
xisbi noocaasi ayaa sare usii qaadi karaya awoodda muwaadiniinta carabta oo ay ugu yeelanayaan saameynta dhismaha dowladnimo ee maamulka Israa'iil. xiriiradaasi marka warbixintu waxa ay u aragtaa inay muujinayso dadaalka Barquuti ugu jiro inuu saameyn uu ku yeesho habka ay bulshada carabta ee Israa'iil ay u codayso iyo isku dheelitirka awoodda siyaasadeed ee Israa'iil. waxaa laga yaabaa inay arrimahan oo idin la yaab ay kula noqdaan, laakiin waa macluumaadyo bannaanka soo baxay maanta. wuxuu taas uga faa'iidaysanayaa maqaamkiisa astaan qaran iyo taageerada uu ku dhex leeyahay qaybo badan oo Falastiiniyiinta ku nool gudaha xabsiyada Israa'iil iyo deegaano kale ama dibaddaba. waxaa sidoo kale la sheegay Barquuti inuu si taxaddar leh u maamulo muuqaalkiisa siyaasadeed isaga oo door bidaya in dad kale ay gudbiyaan fariimihiisa halka isagu uu si toos uga soo muuqan lahaa. arrintan waxay gacan ka geysanaysaa in loo arko astaan qaran halkii ugu yaraan loo arki lahaa siyaasad dhaqameed si maalinle ah ugu lug leh loolanka siyaasadeed. ugu dambeyntii warbixinta waxay xaqiijinaysaa in ololaha caalamiga lagu dalbanayo sii deynta Barquuti ay ku jiraan siyaasiyiin, aqoon-yahano, fanaaniin iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ka socda dalal kala duwan, kuwaas oo muuqaalkiisa sii xoojinaya. taageerayaashiisu waxay arkaan maxbuus siyaasadeed inuu yahay iyo astaan u taagan Falastiiniyiinta. waxaa kaloo ay ku doodaan in muuqaalka caalamiga ah uu iska indhatirayo xukunada maxkamadaha lagu riday iyo nooca eedeynta ee ninkan lagu haysto. gabagabadii warbixintu waxay sheegtay Marwan Barquuti weli inuu yahay marka laga eego aragtida hay-adaha xabsiyada Israa'iil shakhsi udub dhaxaad u ah fagaaraha siyaasadda ee Falastiin inkastoo xabsi uu ku jiro. adigu maxay kula tahay qaybta hoos aragtidaada ku reeb like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay. falanqayntii guud ahaan ee qaybta wanaag intaa mid lamid intaan ku kulmi doona nabadgelyo.